Waxaan maanta ka hadlaynaa laba dhagax oo qaali ah. Labadaa dhagax waa labada dhagax oo dunida ugu qaalisan xilligan la joogo. Dhagaxa koowaad waxaa la yiraahdaa diamond. Diamond-tu waa caddaan dhalaalaya midabkeedu. Waana dhagax si naadir ah loo helo. Meelaha qaarkoodna caalamka si badan ayaa looga heli karaa. Xaqiiqada dhabta ah dadku waxay aaminsan yihiin waxa hadduu qaali yahay inaan la heli karin. Waa la heli karaa laakiin maxaa lagu heli karaa aqoon. Aqoontu sababtoo ah waxay kuu fududeynaysaa deegaanka ku habboon. Innaga gaar ahaan dhul waxaan joognaa cidlo u badan, buuro iyo togag iyo webiyo leh. Aad jaanis badan u leh. Dhul iska volcanic horaa leh. Dhul ma garanaysaa cimilooyinkii macdanta oo dhan leh. Marka aan ka imaado waxyaalaha sharaxaadda goonida ah. Waxaa jira dhagaxan diamond la yiraahdo waa dhagax caddaan ah intiisa badan. Mararka qaarkood midabo kale way ku jiri karaan. Laakiin caddaan dhalaalaya ayaa ugu caansan. Dhagaxan markaa diamond-ka la yiraahdo waa dhagax qiimihiisu dunida uu ka jooga halkiisa kaarad $500 ilaa iyo inta u dhaxaysa $100,000. Qiyaas kiiladiisu waxay u dhigantaa $500,000. Kiilada dahabka ahna waxay u dhigantaa $120,000 ilaa $140,000. Marka kiilada dahabka waxaa la oran karaa 4 jibaar buu noqon karaa uu ku 4 jibaarmaa qiimo ahaan markii loo eego. Garaamka dahabka 4 garaam oo dahabka iyo waxa isu dhigma iyo garaamka dhagaxa diamond-ka ah. Sidaa marka waa qiimaha dhagaxa diamond-ka lagu ogyahay. Dhagaxa diamond-ka waa dhagaxa dunida ugu adag. Waa dhagaxa diyaaradaha, madaafiicda, qalabka kale ee aadka loo adkaynayo, gawaarida proof-ka oo gawaarida maaragtay dowladaha ay isticmaalaan madaxdu isticmaasho. Maadooyin diamond ah baa lagu kordhiyaa oo ka dhiga inaan qaraxa iyo waxaasi aysan karin. Diamond-ku marka waa shay aad u adkaysi badan. Wuxuuna caan ku yahay qurux, adkaysi, awood iyo saameyn uu ku yeesho aadmiga arka oo jacayl iyo maxabo uu gelin karo. Diamond-ku marka waa dhagaxaas. Xagee laga helaa haddii aan isweydiino. Waxaa laga helaa buuraha dhagaxa garnate-ka leh, dhagaxa quartz-ka leh, dhagaxa tourmaline-ka leh, meelaha qaar agad leh, meelaha qaarkood dhagaxan haddii Ilaahay qadarayo leh, meelaha dhagaxa pegmatite-ka la yiraahdo leh, meelaha buuraha dheer leh, meelaha webiyada leh, meelaha durdurada iyo togaga leh, meelaha cimilada saameynaha noocaas leh. Waxaa arka xilli walba xilligan aan joogno dadka reer baadiyaha ah, dadka beeralayda ah, dadka xoolo raacatada ah, dadka sidoo kale malabka shinnida iyo baadiyaha ka gurta. Dadkaasi waa dadka ugaarsatada ah. Dadka noocaasi waa dadka in badan la kulma. Aad bay u arkaan. Dadka gawaarida meelaha duurka iyo dhulka togaga ka shaqeeyo wada. Dhagax astaamahaas leh ayay mar walba arkaan. Haddana kuma baraarugsana. Waxaa laga yaabaa asagoo maanta gaajo ay nafta uga dhacayso inuu dul maro dhagax ay ku jiraan buur ay ku jiraan dhagax aad u dhow nasiibka si dhow loogu heli karo oo haddana uu maalinkaasba uu ka qaadan karo $1,000,000 iyo wax ka sarreeya. Sababta caqabada ah oo ay mar walba dadku wax u ogaan laayihiin dhulkuna u dihin yahay
waxaa kow ka ah aqoon la'aan, 2 waxaa ka ah dadaal la'aan, 3 waxaa ka ah wadanka oo aan dowladiisa iyo siyaasadiisu aad u fadhiyin, 4 waxaa ka ah haddii Ilaahay qadarayo warshado waaweyn oo aan wadanka ka jirin. Markaan sii badiyo waxaa kamid ah in maaragtay aysan jirin ganacsato ganacsigoodu macdanta gaar ahaan dhagxaanta gemstoneska aad u target gareeya. Intaas marka aan kaga imaado waxaad fahmaysaa in wax badan oo caqabadihi jiraan. Dhagaxaan diamond-ka ah hadda qofka dhagaxda raadinaya dhagaxa kaliya diamond kaliya ma uu raadinayo. Wuxuu heli karaa diamond, wuxuu heli karaa ruby, quartz, emerald, sapphire, opal, topaz, tourmaline, agate intaas oo dhagax dahab iyo wuxuu heli karaa maar iyo silver iyo intaas oo noocba ku jira dhulka oo macdan ah. Mid walbaba xataa bir buu heli karaa inkastaba mid kastaba qiimaha ku kala duwanaadeen laakiin iib gooni ah ayay u galaysaa si gooni ah ayaana loogu baahan yahay. Marka yaa ka faa'iideysan kara waxaa ka faa'iideysan kara qof aqoon raadiyay, aqoon bartay, 2 samir yeeshay, 3 go'aan qaatay, 4 fuliyay, caqabadaha dhan oo la kulmo ku adkaysta, marjac iyo la talin dambe leh, cid uu ku xiran yahay leh, qorshihiisa qorshe togan oo meel yaalla yahay, aan leexleex lahayn ayaa ka jawaabi kara. Waxaan ka hadlaynaa dhagaxa labaad oo aan ka hadlayno waxaa la yiraahdaa magaciisa ruby baa la yiraahdaa. Ruby sida aad ku fahantay ruby waa dhagaxan gaduudka caan wuxuu ku yahay midabka gaduudka ah. Waxaa laga helaa meelaha diamond-ta laga helo iyo macdanaha kale oo qaaliga ah. Waxaa heli karaa sida aan soo sheegay horeyba dadka aqoomaha iyo xirfadda iyo awoodda u leh. Adiga shaqsi ahaan dadkaas waad ka mid noqon kartaa, wax cusriya ma leh. Dadaal iyo aqoon kaliya ayaa ka hortaagan iyo qalab. Inta badan dhagxaanta gemstoneska ah dadka raadiya way helaan sababtoo ah dhagxaanta gemstoneska ah hal dhagax maahan. Qofkuna hal shay hadduu raadiyo wuu wareeraa laakiin hadduu shayo badan raadiyo shay unbuu marka dambe gacanta ku dhigaa. Adigu shay alla shayga aad doontid haddaad gacanta ku dhigtid ama raqiis ha ahaado ama qaali ha ahaadee wuxuunbuu kaa caawin karaa. Laakiin inta aadan raadin waa inaadan marka hore laablakac samayn, waa inaad xirfad baratid, waa inaad qalab gadatid, waa inaad cid marjac yeelatid, waa inaad go'aan qaadatid. Inta badan caqabad dadka Soomaaliyeed haysata oo 3 baa jirta. Horta dadka Soomaaliyeed qaar badan oo wax xiiseynaya waa dad aan lacag haysan. Sida xaqiiqada ah qofka ka lacagta badani waa ka nasiib badan yahay waana ka dadaal badan yahay sababtoo ah wax walba uu rabo wuu maal gashanayaa. Caalamkana hadda lacag baa kala wada. Haddaan lacag la helin talo ma hagaagto inta badan hadda sababtoo ah qof kastaaba hadduu u shaqaynayaa wax kasta oo u baahan yahayna kharash bay noqonayaan. Taasi marka waa caqabada kaliya ee ugu badan ee na haysata dadka Soomaaliyeed ee anagu aan ka mid nahay. Marka waxaan kuu sheegayaa inaad kolley guul gaari kartid laakiin guusha waxa lagu gaari karaa ay tahay in aad kharash gelin kartid, waxa maal gashan kartid, diyaar garow samayn kartid. Inta badan macdantu waa dadka doonaa waxay gataan marka intaysan macdanta doonin. Waxaa jira qalab la gato, waxaa jira daawooyin la gato, waxaa jira xirfad la iibsado,
waxaa jira xog la helo, waxaa jira meelo ku habboon hadhowdii la taarget gareeyo, caqabado meelaha ku habboon oo lasii barto baa jira. Haddaad nasiib iyo jaanis u lahayd oo ka ag dhoweydna iyaduna waa xog caawin oo fiican. Marka kolley waa wax wanaagsan. Anigu waxaan qabaa inaad ka faa'iideysan kartid, gaari kartid hadafkaaga. Taariikhaha dunidan dad baa bilaabay, dad badan baa helay. Shayga faa'iido badan ma yeesheen hadduusan shay la helayo ahayn, sababtoo ah shayga aan la helin dee lamaba helo. Haddii waqti xoogaa la raadiyana waa laga maarmaa. Haddii la waayana qiimihiisa hoos buu u dhacaa. Shayga marka suuqa qiimaha ku yeelan karo, saamaynta badan yeelan karo, dunidoo dhan isticmaali karto, cid kastaana ogaan karto, waa shay aad arkaysid in la helo lana heli karo. Sababtoo ah ganacsaduhu wuxuu maal gashadaa ama ka ganacsadaa wax uu mar walba heli karo. Sababtoo ah mar walba inuu qofku faa'iido rabaa. Marka ganacsato ma jirteen Jamestones ka iibsata haddaan la helin. Haddii aan waxaan la helin, hadalkooda dadku ma sii qaadeen, waa laga niyad jabi lahaa. Buugaag iyo waxaa soo bixi lahaa caddaymo sheegay inay dunida ka dhammaadeen ama ay wax naadir oo mar la helay ahaayeen. Xogahaas oo dhani waa xogo taagan, adigana aad ogaan kartid. Aniga marka waxaan kula wadaagayaa qofkan sharafta leh oo ila daawanayo, aad iyo aad baa horta u mahadsan tahay sida aad ugu dhiiran tahay, aad barnaamijkan u xiisayso, aad u baarto, wax uga ogaato. Wax kastoo aad ogaatidna waa wax mar uun ku anfacaya. Ha u qaadan wax iisiya ama iska hawl yar. Waxaan aad hadda daawanaysid ama aan ka hadlayno waa wixii dunidaada laga yaabo inay jahangoyn iyo dhaqaale iyo horumar u horseedi lahaayeen. Dad badan oo hadda jooga Soomaaliya ama caalamka guryaha ay degan yihiin waxay ka gadeen macdan, laakiin dadku xogtooda way qarsadaan. Dhaqaalaha ugu badanna waxaa laga sameeyo caalamka waa macdanta, waa caafimaadka, waa manufactureska warshadaha wax soo saarka hal abuurka ah, iyo beeraha oo meelaha ugu badan oo caalamka, iyo xoolaha waa meelaha ugu badan oo wax laga sameeyo. Innaguna waanu leenahay dad naadir ah oo macdanta ka hagaajiyay horumarkooda oo dhan. Haddeer waagan dambana 5 sano ugu dambeeyay dahabka ayaa aad u firfircoonaa Soomaaliya. Dad badan ayaana dahabka wax ka gaaray ilaa haddana hawlihiisa wada. Marka dahabka waa il meesha taagan oo dhaqaale. Anigu waxaan fahansanahay inaad wax badan ka fahanteen. Haddii hawshan sii socotsana inaad heer badan ka gaari doontaan adiga iyo asxaabaha kale oo xiisuhu barnaamijkan uu hadda ku hayo. Haddii aan intaa ka imaado, waxaanan kuu sheegin dhagaxaan xogtiisa oo faahfaahsan meelaha laga heli karo. Dhagaxaani wuxuu la socdaa diamond-ka. Markaa kuu sheego rubigu wuxuu kaloo ku yaala ama laga heli karaa buuraha saan hore u soo sheegayba granite-ka leh, buuraha quartz-ka leh, buuraha pegmatite-ka leh, dhagaxa lakabyada waaweyn isu saarsaaran leh. Waxaa laga heli karaa togaga wabiyada iyo buuraha iyo durdurrada. Jaanis fiican buu leeyahay. Waxaa jiri doona dhagxaan kale oo iyagana ka sii badan oo inaan ka hadalno aan jecelahay. Waxaa intaa dheer oo jira iyaduna inaan mar walbana wadno qorshaha aanu wax ku hagaajinayno. Waxaa jira qayb kale oo aanu dadka ku barno macdanta oo qofka hal mar oo isdiiwaangelina uu maro, laakiin
qofka saaba uusan diiwaangelintaas inuu isdiiwaangeliyo mararka qaar chance u heli karin qofkana si professional wax loo baro oo markuu chance leeyahay uu nala soo xiriiro hagid markii uu u baahdo haduu shaqo galayo aanu hagno sida aanu ula shaqeyno haduu hayo wixii $10,000 gaaray aanu dahab markii laga reebo aanu u iibino wixii ka yar $10,000 aanu hadeertan suuqyadii aanu ka iibin lahayn aanu ku maqanahay waxaa jira in aanu buugaag iibino hada buug waxaa jira 8 macdanood dulmar guud oo fiican ka sameynayo qofka hagi kara oo 58 page oo aanu $3 kaliya siino waxaa jira buugaag kale oo hada soo socda waxaa jira baaristii macdanta dhagxaanta oo qofku dhagaxa uu sawir soo dirsanayo sawirkaasna loogu baarayo hab online ahaan iyadoo sawirka habka uu qofku u soo dirayo uu nala soo wadaagayo marka dhagaxa uu hayo kadibna aanu sharaxayno ama aanu website-keena daran.net uu ka soo akhrisan karo oo asaguna hoos yaala linkigiisu wuxuu nagala soo xiriiri karaa lambarka telefonka oo hoos yaala qofku wuxuu mar walba noo heli karaa si joogto ah anagu hagideenu waa hagid joogto ah mar walba waanu xiiseynaa asxaabo iyo dad nagu soo xirma horumar iyo hadaf fiican baanu aragnaa inaad barnaamijka like garaysid oo share garaysid oo subscribe garaysid hadaadan hore ugu soo biirin aad ku soo biidid oo gambaleelka furayt waanu annagana way noo fiican tahay adigana way ku fiican tahay oo xog baad maalin walba helaysaa aad ka faa'iidi kartid tan hadaadan ka faa'iidin tan dambe ayaad ka faa'iideysan kartaa qof wanaagsan oo kale sharaf leh baad tahay horumarkaagana haddii aad sii dadaashid waad gaaraysaa magacay waa Cabdullaahi Saciid Sheekh Xasan ku soo dhawaada la socod wanaagsan